السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا مالك سودوني دافيدة كجوجتان سو نقد وناكسن دمانتين وقت كستو يدين تهيب وحنا الله سبحانه وتعالى إذا كرجيني إنه يدين وناكسن هذا إن أنت كبعدي وحنا فيديو إننا كقولوا وداعو شن قضب وحنا أركع قفك بني آدم كان لوشي سئني مهم وتهاي واي قفك بني آدم كهي وحياة بدنا وحاجرتن لوشي سلقة بمارمان أي وتهاي سي أدقنا شو قلنا ولا تد noloshaadu ay nolol fudud oo sahlan u noqoto in qofku dabeecad ahaan uu isbaro caado ka dhigto waana muddo dheer bay ku kaalmayn doontaa midda koowaad waxay tahay ixtiraamka bini'aadamka inaadan xushmad inay ku aqoodaan inay ku gartaan inay heerka aad joogtid ku fahmaan inaad ka fishid bini'aadamka jar oo jooji sababtu maxay tahay waayo marka filashadaadu ilaa xad ay weynaato waxaan hadhowdii ka dhaadhacaynin marka qof uu ku xumeeyo ama qof sidaad rabtay uu kugu jawaabi waayo ama qof wixii aad mudnayd uu ku siin waayo in lagu xaqiray in aad tahay qof loo gafay waxaad dareemaysaa niyad jabka kan ugu weyn meeshu ka yimaado 99.9 waa qofka waxa aad ka filanaysay markaad ka weydid haddaba si marka taasu meesha uga baxdo xasilooni aad ugu noolaatid maxaa xal noqonaya waxa xal noqonaya go filashada tan qofka aad ka filanaysid inuu ku abaalgudo waayo waxaad ogaataa bini'aadamku waa jazaar الله أبورتي بني آدم كوكو جزارا إن الإنسان لربه لكنود الله أبورتي بيسن بني آدم كوسف سيدو مضنا أيسن أقوم مهدنقين حقي أمضنا أيسن سينين بل كورن أديقو مركا قف بني آدم مركا في لشدة أدو إلا حد كايسن جارن أقوان سينات كهشيد رأي قاقين يقرتان قيمها اللذين يكون فهمان كو ضدك كو سوكيان كو قرانينين مرمركا قاركود كو صاحباتهم بان كو قرانينين في لشدة نوع عاسا نفط هذا مانتا كاتشر waayo si weyn bay tani ku kaalmaynaysaa oo wax fara badan bay ka bedelaysaa qodobka labaad wuxuu yahay markaad ilaahay baryaysid ha u malaynin in ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryada aad baryaysid adduunyadan uu janno kaaga dhigayo taas wax dhacaya maaha waayo adduunyada tan waa daarul ibtilaa waa imtixaan sababta aad ilaahay u baryaysaa marka waxa laga yaabaa inaad tiraahdo maxay tahay marka sababtan ilaahay u baryayo wuxuu weydiisanayaa marka sababta ilaahay subxaanahu wa ta'aala u baryaysaa koow waa in uu adduunyada hawlaheeda tirada badan yaalla inuu ku fududeeyo mushkiladii markay ka dhamaato mid kale lagu dhiibaya markay mid ku bilaabataba tu kala kaasi dhamaanaysa adduunku sidaas u yaala laqad khalaqna al-insana fi kabad looguma talagelin adduunyadan inaad raaxa ku noolaato raaxa jannay taala qof kasto ina ka midana waa daarta ay tahay inuu u shaqaysto maanta oo every second aad haysatid inaad maalin kasta amalka waajibaadka lagu diray inaad ku dadaashid sitaasu ay u suurta gasho riyada weyn dhamaanteen inuu leenahay hadii aynan u shaqaynin ma gaarayno way riyada ugu weyn leenahay waa inaan janno galno sax ina marka taa aynu u shaqayno hadii aad isleedahay ilaahay marka kaalmo weydiisto miyuusan janno adduunyada iga dhigaynin ilaahay subxaanahu wa ta'aala janno waa kaaga dhigi kara adduunyada laakiin xikmadii adduunyada ilaahay ba meesha ka baxaysa janno lagaagama dhigayo ee hawshan aad maraysid iyo waxan aad ku dhex jirtid baa lagu khafiifinaya lagu fududeynaya iyadoo mushkiladii taagan tahay ba waxa lagu siinayaa awoodii aad kaga gudbi lahayd markaasaad xaalad kasta oo adag oo naftaada ka naxiso ku argagax gelisaba si qurux badan baad marka dambe uga gudbaysaa oo bini aadamku sidoodaba markasta oo ilaahay baryayaanba waa ilaahay baad weheshanaysaa midda saddexaad waxay tahay xaalad kastaba markay kugu adkaato adduunyada faqri baad arkaysaa oo walwal iyo walaac fara badan baa ku soo maraya oo dad badan oo adduunyada aad ka filaynin baa ku xumaynaya oo niyadaad ka dilmaysa oo kaad jeclayd baa ka tagaya oo qofaad jeclayd baad waayaysaa oo geeridu ka qaadaysaa waxaad ogaataa mar walbaba adduunyada cidla ma tihid nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii fircawn iyo askartiisii iyo ciidamadiisii ay goor arooriye ah u yimaadeen fi suuratu shucaraa ilaahay markuu ka hadlayay goor arooriye markii ay ku yimaadeen meel xaggana baddu ay ka xigto intana hirka jooga uu yahay ciidamadii iyo askartii uu fircawn watay isagoo ilaahay uu tilmaamay fil madaa'ini xaash magaalooyinkii oo dhanba askartu ka soo urursaday xataa cid ma soo reebin fircawn xoogii uu lahaa dawladdiisu ay lahayd dhammaan wuu soo urursaday waxa uu u soo ururiyana maxay ahayd wuxuu u soo ururiyay waxay ahayd sida muuse iyo inta la socota loo qaban lahaa oo loo layn lahaa sax goor arooriya markii halka iskaga hor yimaadeen maxaa dhacay nabiyullaahi muusa calayhi salaam qowmkii la socday markaa waxaad moodaa si inay u rajo go'een oo isu dhiibeen inna la mudrakuun ilaahay uu tilmaamayna yiraahdeen
محيري نبي الله موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين إيجو مركي عدل الدريمين نبي موسى عليه السلام وحيري ما يسا مودا يسان أريتو مساكت يسان ما أهاني ربي جيبا إلى تشيرا أو وضد سيدا صحدا إيه سيدا هبون إيه سيدا إفرحات جلنيس إيه سيدا جوش يدو كتشرتب إسا جايقوها نوني يقوتو سينية سبحان الله العظيم محان دعي وتا إسلام مركب إلهي سبحانه وتعالى قل ير سبحان الله قل ما أنت محاد كفي لنا يسا با الله سبحانه وتعالى وحي ربضا كله فوق أفرس إلهي سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير وو أودا ما أنت إنه دكتور كارديغو بايلوت كارديغو قرآن كافريتو بقول كل جو حفظيسيو مليونير لقاعد ساكن مركز سوق عدي وو أودا لكن صوتهم حيتها هي وحول بابا شقادة أدق يهوشة لقاعد حيتشينيو waayo qofka bini aadamkaahi waxa uu shaqaysto oo dadaal fara badan ku bixiyo marka ay gacanta u soo galaan buu raaxadeeda dareema qiimaheeda gartaa waa muhiim marka in aad nafahaantaada mar kastaba aad ogaatid adduunyada tan cidla kuma tihid xaalad kastoo ku soo martaba kelima tihid mid waxay tahay shaytaanku ilaahay soo tilmaamay quraanka waa liyaxzuna alladina aamanuu inuu ku quus geliyo maahan isagu ujeedo kale ma lahan intuu dambiga ku geliyo oo dambiga dhex gashid ba marka hadhowdi noqo istiraad buu wuxuu kuleeyay ma adigoo intano dambiga ku jirtay ba hadda ilaahay hortagaysa adoo sidan wasakh ah markaasaad quusanaysaa faqri hadduu jiro waxaa laga qaadaa waa shaytaanku camaladu qofka bini aadamka u diro heesaha maxaan iraahdaa waxyaabaha dunuubtii rabbi uu ku diiday wax kastoo qalbigu ku qalalayaba waxaad ogaataa jeebkaaguna waa ku qalalaya laakiin shaytaanku ku iimaanaya wuxuu kuleeyay oo gaaladuba soo kuwan barwaaqaysan oo nicmaysan iyagoo gaalo kufaara لكن أديكو مسلمة هل دنبيو يرد قشي مد أقو آدم عليه السلام إلهي وحو جنة كغسو صاري هل دنبيو أقلي هل دنبيو أقلي أنا أديكو تيد دنبيو كجرنا أو قرآنكو عدينا يا أو دينتين يا الله سبحانه وتعالى أكتي سكوين إنكو يريسانينا إنكو وينو يريسانينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وحديع كرت أكتاد إنو كفدو دي هي لكن الله سبحانه وتعالى أكتي سآد بو قوي هي أدوغو مركا عدة وحكومة يساها نقونين وحا لقود دي دي الشيطان وحو كفر يودوينك وكل حين يكاليحو مركو صلاة ربا إنو كادب ريدو وحادو قاتا دبو ديعي نلوش هذا قليسا قول درا أدوم بعد لكل ميسا waayo shaytaanku adoo game ciyaaraysid oo television fiirsanaya oo shukaansi ku jira oo macna daro dul fadhiya ayuu ku leeyahay iska dul fadhi xoogaa yar way joogtaa suu ku wado wuxuu ku geynayaa meesha ku quusan lahayd markaas wuxuu ku leeyahay hadda way tagtay iska daa inna allaha ghafuurur rahiim reer bani israa'iil baa yiri dunuubtooda iyo macaasidooda iyagoo dambiyada galayo og ilaahay inuu diiday bay waxay lahaayeen sayughfaru lana ilaahay waa noo dambi dhaafi doonaa iska daaya aynu iska wadano marka waa inaad da'biga dadkii hore aad naftaada ka soo celisid ka sifaysid maantana aad garatid ilaha shaytaanku ka soo galiyo waxa loo yiraahdo waxa la yiraahdaa bini aadamka kun qof hal caalim ah ayuu shaytaanku uga nacay badan waayo caalimku wuxuu yaqaanaa wada kasto il kasto shaytaan ka soo galayo laakiin inta badan dadku ma yaqaanaan ilaha shaytaanku ka soo galiyo sadarteed faqriga waxa sababta u ah inta badan iyo noloshaada inaad dib dhacdo oo caajis oo ka buuxsamo waa shaytaan mid shanaad waxay tahay waxyaabaha sunta ah noloshaada ka masax oo ka tirtir nafahantaada waa ducaysan kartaa ilaahay waa bari kartaa waa cibaadaysan kartaa saqdi habeenkii waa istaagi kartaa laakiin laba waxyaabood hubi labadan waxyaabood waxay yihiin ducada waxa ka horeeyad samaysay iyo waxa ka dambeeyad samaysay waayo labada waxyaabood baa tusaya in ducada laga ajiibi karo oo ama laga ajiibayay in kale haddii camal xun aad soo samaynaysay ka bacdi ilaahay inta baraday haddana camal xun aad niyadaada ku sii jirin aad samaynaysid waxaad ogaataa inay macquul tahay ducada inaan laga ajiibin inaan laga aqbalin ilaahayna subxaanahu wa tacaala ilma aadam calayhi salaam markuu tilmaamay suuratul maa'ida wuxuu tilmaamay innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin dadka ilaahay ka cabsada baa ducada laga ajiibaa dadka ilaahay ka baqo baa cilmiga loo furaa dadka ilaahay ka baqo baa la kaalmaya dadka ilaahay ka xishooda oo ilaahay iska dhowra oo meeshuu u diiday naftooda ka fogeeya baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosha tan guul gaarsiiya oo ilaahay uu ku hadayaa wadooyinka wanaagsan والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين هدارة إلهي إنه كل شيء كالميو قرب كاغا قالو مرغدي والورك كاقاضو تطبع ما أنت وحي كفكريا إني إسدلان صابتهم حيتهاي وأي نلوشي رنبو كقوست وو نعي وو إسنعي تاسا كانت إنو ما أنت هميجيس رنبو كسو أوروري الدنيا دا إنان إسنافيو أو إسدلو ما أهاني ودكالي أو إيماني ما جرتو
adiga maxaa laga rabaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala adoon ku xiran noqo markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kaalmaynaya adduunyada waxaa rabtid ku siinaya kurbada kaa qaadaya walwalka kaa faydaya markaasaa ilaahay wax kastood jeceshahayba albaabkeeda kuu ballaqaya hibada aad leedahay baa soo baxaysa laakiin intaad ilaahay ka sii jeedid hibadaadu waa qarsoon tahay adduunyada tan inta aad joogtidna wax fara badan oo qasa kama dhammaanaysid si noloshaada ay u hagaagto haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala adoon ku xiran noqo dhammaantiin meel kastoo dunidaad ka joogtaanba maanta wakhtigan hadda aan joogno rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay jahannama laba wakhti baa ilaahay siiyey inay neefsato oo wakhtiga qaboobaha daran uu jiro iyo wakhtiga kulaylaha daran aynu arkayno soomaaliya haddaa maanta joogtid oo kulayl daran aad dareemaysid waxaad ogaataa naartii jahannama dhaaranayso oo neefsanayso oo ilmo aadam intooda ilaahay u gaftay u dhaaranaysa haddii aad qaboobahan joogtidna waxaad ogaataa qaboobahaasuba cashar buu kuu yahay waa naartii jahannamoo neefsanaysa qof noocaasihi ma seexdo qof noocaasihi isma dhigto qof noocaasihi ma quusto qof noocaasihi ilaahay kama daala inuu caabudo dhammaantan jannaynu rabnaa laakiin intaynu u shaqaynayna way yar tahay safar dheer baa ina sugaya laakiin zaadkaynu sidana waa gaaban yahay dhammaantiin intaynu dib video kale ugu kulmayna waana walaalkiina ayuubo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh